maxaa saakay la hadalhayaa saakay laba dhacdo waaweyn baa la hadalhayaa nin dhintay iyo nin la xiray ninkan dhintay haddaan ku hormarno waa nin la garanayo Pele boqorkii Banooniba haddii la sheego waa nin looga dambeeya buu ahaa jiray dalkiisa Brazilna wuxuu ka ahay halyeey qaran buu ka ahay 3 koob oo dunuu ku guuleystay wuxuu ahaadaba uu dhintay 82 jir ayuu ku dhintay haddaba Pele dhimashadiisaas ma wax lagu xumaado way wada dhimanayaa laakiin waxa lagu xumaado waxa weeye oo laga naxo ruuxan insaankan inuu dunida ka baxay isagoo muslim ahayn rabbi subhanahu wa ta'ala bilaadku idilba wuxuu ku amray inay ahaadaan muslimiin kadibna ay ku dhintaan muslimnimadaas wala tamutunna illa wa antum muslimun ninkan odaga markii wuxuu dhintay isagoo muslim ahayn maanta markii wuxuu wajahayaa xaqiiqda buu wajahayaa wixii loo abuuray wax weyn inay ahayd hadda buu ogaaday laakiin xaquu ku ogaaday meena laga soo laaba karin ayuu ku ogaaday buugiisa marka meesha baa lagu xiray ruuxan kale toodaan ka hadalno ruuxan waa ruux loo fikiray weey Soomaalidu waxay dhahan indha quraansho iyo sir galba lama ogaada bay dhahan ninkan odaga markii hore wuxuu ahay mulxid buu ahaa jiray gaal buu ahaa jiray kadibna wuu soo muslimay markuu muslimay dadka muslimiinta ayuu difaacay qiyamkooda iyo diintooda ayuu mikrofoonkiisa ku difaacay iyagana dhaliishooda uu sheegay horena uu sheegi jiray kadibna waxa dhacda marka in dib loogu laabto feelashiisii horeetood dambiyo horeetood oo lagu tuhunsanaa jiray ayaa la dhahay dib ha loo furo ha loo eego bashar buu kala iibiyay iyo waxyaabo saas kulliba gabdho la kala iibiyay waxyaabo saas u maleynaya lagu tuhunsanaa jiray wixii baa dib loo eegay kadibna maanta waxa la go'aamiyay in la soo xiro waa ka la sii saaraya baabuurkaas waa la sii xiray waxa isweydiinta mudan marka waxa weeye markuu shalay mulxidka ahay gaalka ahay maxaa loo xiri waayay dambiyada loogu qaadi waayay maanta markuu muslimay maxaa loogu qaadayaa dambiyadan yacni gaaladu sidoodaba markay ka dhaxarkayaan dantooda markay ka dhaxarkayaan way ku sii deenayaan magac samee maal samee oo ku sii deenayaan oo ku ilaalinayaan oo ku wardiyanayaan dantoodii markaa aad yacni ka hadlowsa ama aad faafinaysa ay ka dhaxarkeen laakiin markii arkaan in dantoodii ay ka dhex waayaan oo waliba inta badan aad noqoto dhanka iyo diinta islaamka iyo danin marka amaano iyo adigoo waliba magac leh marka kala baxsamaysan inta kugu shaqeysan karaan oo kugu shaqeysanayaan maalintay ku arkaan in aad ka hortimaaday qiyamkoodii wixii marka ay wadeen sida qoomuludnimadan iyo balaayooyinkan ku soo kordhiyeen mar haddaadan booboodin ay ku qabanayaan laakiin qofkii isdaad raaciyo ay sii deenayaan duniduna way siinayaan rabbi subhanahu wa ta'ala ka soo furta